الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي تبنات كتاب كان إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى وعن كجرني قلبك الطهارة ذيسي طهارة قلبك الله سبحانه وتعالى مركوليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر sida ka muuqato waxaa weye dharkaagana daahiri marka laakiin jumhuurulmufasiriin baa la yidhahda min asalaf ee mufasiriinta inta ugu badan tahaarada iyo thiyaabta la sheegayo almuraad bithiyaab waxaa weye alqalbu bay yidhaahdeen athiyaab waa qalbiga waxa loo jeedo walmuraadu bitahaarana waa islaax alakhlaaq walacmaal qalbiga acmaashiisa iyo akhlaaqdiisaba in la hagaajiyo sidaasa waxay ku noqon wa thiyaabaka qalbigaaga fatahir daahiri oo xumaanta iyo dunuubta iyo wasakhda iyo waxaasoo dhan ka saar oo acmaashii quluubta xumayd oo dhan oo hagaaji oo maaragtay acmaashii wanaagsaneedna qalbigaaga ka buuxi alqalbu daahir qalbiga markuu daahir noqdo xayaatadiisa iyo noloshiisa kaamil noqon nuurkiisa ayaa imaanaya oo baxaya qalbiga wuu nuurayaa ilaan qalbiga waa nuuraa al adraan walkhabaa'ith xumaantii iyo wasakhdii iyo wixii ku dheganaa sida shayga meel markuu muddo yaallo waxyaabaha ku dhegdhega oo dusha ka kora waxaasoo kalebaa ka dhammaanaya wuxuuna maxaa la yidhaha qalbigu qofka qur-aanka kama dhargaa la yidhaahdaa qofku haddii uu ilaahay subxana wataala qalbigiisu sidaa noqdo qalbi wanaagsan oo nool uu noqdo kama dhargaya qur-aankii xaqaa'iqda iyo waxyaabaha diintu sheegaybaa qado u noqda tadaawiba u noqonoo caafimaadka halkaasuu ka helayaa laakiin qalbiga kaleo isagu faasidka ahi waxaasoo dhan cunto uma noqonayo iyo qadatoona allah subxaana watacaala wuxuu ka xarimaa la yidhahda jannada qofka qalbigiisa nijaas ay ku jiro yani qof qalbigiisu wasakhaysan yahay jannada wuu ka xarimaa oo geli maayo ilaa bacda in lasoo tahiro moogiye balda u fiirso in lasoo tahiro walidaalika ilaahay markuu leeyahy subxaana tibtum fadkhuluuha khaalidiin fi suurati zumar aayadda 73 waxaad tibtum baa la waad wanaagsanaateen ay taabad anfusukum naftiinni baa tiib ah oo wanaagsanaatay ee gala jannada idinkoo ku waaraya waxay gelayaan marka la tahiro oo xitaa dadka dunuubta leh oo kabaa'irta sameeya insha allahu qofka ahlu iimaanka oo kelima ahlu laa ilaaha ila allahu naarta kuma waarayo sida ay qabaan madhabka jumhuur ahlu sunnati waljamaaca sidaas daraaddeed muxuu noqonayaa qofku hadduu kabaa'irta iyo dunuubtii waaweyn la yimaado in allah uu iska cafiyo isagoo oonba cadaab iyo ciqaab soo marin iyo inuu ciqaab iyo cadaab lasoo mariyo hadduu marka cadaab iyo ciqaabta marka lasoo mariyo macnaheedu waa lasoo tahiray wasakhdii baa laga reebay wuxuu noqday marka xilligii uu tiib naftiisu noqotay oo tiibtum la odhan kara buu soo gaar allah subxaana watacaala bixikmatihi xikmadiisa waxaa la yidhahdaa wuxuu ka yeelay jacala adukhuula calayhi mawquufan cala adahaara yacni in jannada gelitaankeediiba wuxuu ku xidhay inay naftu tahay daahir walidaalika xataa qofka musalliga oo tukada haddii uusan waxaa la yidhahdaa waa in qalbigiisii la daahiriyo oo wixii xumaan ahaa adigoo laga yaabo salaadu inaad dhinac ka tukanaysay laakiin xumaan kaleoo tiro badan buu qofkii wadan karaa waa in lasoo daahiriyo weeyaan marka jannada gelitaankeedii wuxuu ku xidhan yahay in layidhi naftii daahir noqoto oo lasoo hagaajiyo biidni illaahi tabaaraka watacaala halkaasa waxaa kasoo baxaya calaamaadku markii uu daahir uu qalbigu noqdabo sixadiisi iyo caafimaadkiisi calaamaad badan baa ina tusinaya marka qalbigu markii uu yahay baa layidhahdaa uu saxiix noqdo u caafimaado geedi buu qaadayaa xagga aakharu u socdaa xaggaasu usii dhowaanayaa ilaa uu marka dambe dadkeedii uu ka mid noqdo oo dadkii wanaagsanaa uu ka mid noqdo maradka qalbiguna iyo hadduu qalbigu jirado isaguna waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa inuu ka fogaado oo aakhiri iyo geerida iyo naco ayay tegaysaa calaamaadka qalbiga wanaagsan marka lagu garto waxaa kamid a layidhaha dikriga ilaahay kama dhargo ma wax kale ma weheshado
wuxuu doonaya wixii ilaahay uun xusuusinaya inuu mar walba weheshado ayuu doonayaa. calaamaadka kale waxaa kamid oo qalbigaa wanaagsan kama zuulayo inuu qofka celinayo, oo hadduu dembi galo wuu soo celinayaa, ma xasilayo qofkii ilaa uu u laabto khayrkii ma ogi. qofkii wuxuu qof ooman oo wax sugaya oo maaragtay aan xasilaynin buu noqon ilaa uu wanaagiisi loo sii daaya moogi. calaamaadka kale waxaa kamid a warkuu salaada gala la yidhahda qofka qalbiga caafimaad qalaay hamigiisii iyo qamigiisii adduunyadii iyo wixii oo dhan baa ka tegay, oo markaasuu tacaluqiisii iyo farxadiisii baa imaanaysa, qurata cayni bayba salaadii u noqonaysaa. qalbigaa wanaagsan waxaa la yidhaahdaa يعني wuxuu kaga shaxiix waxa weeye bakhayl wuxuu ku yahay waqtigiisa in xumaan uu kaga tago, sida qofku xoolihiisa ugu dadaala buu isaguna ugu dadaalayaa waqtigiisa. ihtimaamkiisuna waxa weeye camalkani inuu ansaxay uu wanaag ahaa, in la sameeyo camalkiiyo inuu hagaagay oo ansaxayna taasuu isagu kaga sii dadaal badanya, mutaabici inuu daba joogo wixii ilaahay makaa aqbalay, wax fiican alla magu qadimtay, taasuu ku fikiraya. ilaahay subxaana watacaala amaasheena inooga dhigo mid khaalis ka ah xumaan oo dhan, ilaahayna miduu raalli ka yaha ka dhigo. wajazaakum allahu khayr, baaraka allah fiik.